wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax barre ayaa sheegay in la joojiyay taxaamkii dugsiga sare ee qaadisay dowladda Soomaaliya kaasi oo 3 maalmood ugu dambeysay ka socday inta badan gobolada dalka. wasiir Goodax la hadlay warbaahinta dowladda ayaa qiray in la helay su'aalaha dhammaan 6 maade ee la galay maalmihii Sabtida, Axadda iyo Isniinta. wasiirka waxbarashada Soomaaliya ayaan si cad u sheegin cidda ka dambeysay su'aalaha la bixiyay waxaase uu carabka ku adkeeyay inay jiraan dad iyadoo bil rabadaan lagu jiro dhaqaale ka raadinaya inay gataan su'aalihii taxaamka ee loo diyaariyay ardayda. hase yeeshee waxaa taasi ka soo horjeestay karan banaanbaxay boqolaal ka mid ah ardayda ku jiray taxaamka la joojiyey ee sanadkan dhammaynaysay dugsiyada sare ee magaalada Kismaayo. ardaydoo banaanbax nabdoon ku maray wadooyinka magaalada Kismaayo ayaa tegay xarunta wasaaradda waxbarashada Jubbaland halkaasi oo ay ka muujiyeen cabashadooda ku aadan taxaamka dib loo dhigay. qaar ka mid ah ardayda banaanbaxaysay warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in taxaamka la laalay ay waqti iyo maskax geliyeen isla markaana aysan awoodin inay laba taxaam galaan. magacaygu waa Faadimo Ibraahim Aadan waxaan ka mid ahay ardayda dhigatay iskuulada Jubbaland gaar ahaan Kismaayo. maanta waxaan u soo baxay inaan dareenkayga muujiyo sababtoo ah anoo sooman 3 bari habeen iyo maalin ma seexanin intaas dadaalay habeen waa soo jeeday maalinna 2 saac soo baxo 6 saac ama 7 saac afadaha ku noqonayni taada kale qashkan iyo waxa la sheegayo anaga ma bixinin mana doonanin inaan buddi wax qaadano anaga kama soo dhicin qash socda imaaday dawladana xaq ma u lahan inay ardayda ciqaabto cidii uu qashka ka soo baxay muujinada ama meel walba qashka laga keenay in iyaga la ciqaabaa mudan anaga waa soo dadaalnay murugtii dhafarta naga baxay cid soo celin karta ma lahan. magacaygu waa Maxamed Axmed Xuseen kana mid ah ardayda magaalada Kismaayo degmadan saaka dareenkayga aad buu kacsan yahay waxaa isku soo bandhigay dhammaan ardayda iskuulada magaalada Kismaayo degmadan annagoo ka dhanaa hadalkii ka soo yeeray wasiirka waxbarashada federaalka dowladda Soomaaliya ee wasiir Goodax barre hadalkaas baana taabtay dhamaanteed hadalkaas aan ka banaanbaxaynaa hadalkaas oo ah dhammaan ama gabi ahaanba 10 maado imtixaanka la galay dib baa loogu celiyaa 27 bishan waxaas waa ka dhiidiyeen. magacaygu waa Zainab Cabdi Jaamac waxaan ka socdaa ardayda Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo waxaa maanta halkaan u taaganahay oo qorraxda ugu soo baxnay annagoo sooman waxa waaye dhibka iyo niyad jabka iyo dulmiga uu xalay Goodax la soo fariistay xalay Goodax la soo shirtagay ma soo jeedin 6 bari ma soo jeedin 3 bari waxa dhafreynay oo soo jeednay 2 bilood waxa imtixaan ku guda jirnaa oo dadaaleyna oo habeen iyo maalin soconaa 2 bilood ma yeelay wasiirka waxa fadhiday lagdin la fududaayay waxa Cabdiraxmaan maxamed Cabdullaahi oo dhigtay gobolka ka mid ardayda iskuulaadka maamul goboleedka Jubbaland gaar ahaan degmada Kismaayo u soo banaanbaxnay war ka soo baxay wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya halkaas oo leeyahay imtixaan aan ku soo rafaadinay 12 bilood aan soo rafaadinay wax ka soo baranaynay la yiri hadaba la yiri imtixaankii waa la kansalay 27 bishan ayuu wasiirka waxbarashada Soomaaliya tilmaamay in dib ay u bilaabanayaan dhammaan maadooyinka imtixaanka fasalka ugu dambeeyay ee dugsiga sare isagoo sheegay in la baabi'iyay kuwii la galay maalmahan kuwaasi oo habeen kasta dhex yaacay baraha bulshada. Cabdullaahi Cabdi Ismaaciil Jubbaland TV Kismaayo.